madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo ah gudoomiyaha guddida ka hortagga cudurka COVID-19 ee Somaliland oo maanta la hadlay warbaahinta xilli ay wehelinayeen xubno ka mid ah guddidaasi COVID-19 ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay in 30 bishan aynu ku jirno ee June xayiraadihii saarnaa Somaliland la qaadi doono ee uu sababay cudurka COVID-19 guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunka COVID-19 waxay hore u soo saareen go'aamo la xidhiidha xayiraado la saaray qaybo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii gudaha dalka socday sidoo kale waxayna xayiraad la saaray hayd duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee ka yimaanaya dibadaha iyo isku socodkii xuduudaha dalka hadday tahay dhulka iyo baddaba haddaba guddiga iyagoo ogsoon inay weli jirto khatartii xanuunka COVID-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo ummadana si weyn ugu adkaynaysa in qof walba oo naga mid muujiyo taxadir iyo mas'uuliyad dheeraad ah oo xanuunkan laga hortagayo guddiga heer qaran iyagoo hadana mudnaanta koowaad siinaya in si kasta oo loo yareyn karo culays iyo ciriiri ku yimaada habsami socodka nolosha bulshada reer Somaliland ee maalinlaha ah guddiga heer qaran iyagoo oo si dhab ah u dareensan maskaxdana ku haya saamaynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo waliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimayn iyo wax ka bedel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen ka hortagga iyo la tacaalidda COVID-19 haddaba guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Somaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda kow in laga bilaabo 30 bisha June oo dhamaadka bishan ah guddigu waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga hoteeladii gaadiidkii wixii la mid ah waxa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyay qodobka labaad waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimaadyada diyaaradaha ee rakaab keenayay kana soo degay madaarada dalka sidoo kale waxaana laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyay ka hortagga faafidda COVID-19 qodobka saddexaad waxay guddigu ku wargelinaysaa dadka dalka dibaddiisa ka imanaya ee ka soo degaya ka soo galaya xuduudaha ama dhulka ka soo galo ama cir ama bad in qof kasta uu sito ama uu ka soo qaato dalka uu ka soo dhoofayo warqad caddayn ah oo ay ku caddahay inaanu qofkaasi qabin xanuunka coronavirus ama COVID-19 negative test certificate sito warqadda caddaynta waa inaanay muddadeedu ka badnaanin 4 cisho maalinta uu qofka dalkaas soo galayo guddigu waxay halkan si cad u bayaaminaysaa in qofka aan sidan wax caddayna oo ah negative testigaasi aan sidan balse ka soo dega madaarada dalka uu galayo karantiin uu isagu isku qaba kharashkiisa qodobka afraad waxa habraacyada loo dejiyay ka hortagga faafidda xanuunkan waa awaamiirka soo baxday guddiga qaranka ee ka hortagga COVID-19 oo leh awood sharci iyo mid fulineed sidaa darteed guddigu waxay bulshada ku wargelinaysaa cid kasta iyo hay'ad kasta iyo meherad kasta oo hoggaansami weyda habraacyada loo dejiyay
waxay mudan doontaa ganax lacageed iyo waliba ciqaab xabsi ah haddii laga maarmaan loo arko macnuhu waxay ku murtida ku ururayaa haddaynu xayiraadii qaadnay maaha fantashiru fil ardi maahine inaynu qof kasta iyadoo waxaan soo diyaarinaya ilaa bisha donkeeda waxaas habraacyadaas oo sawirraa oo kala goongooniyo mid walba habraaci miskiidka laga dhaqmayey kii waxbarashada laga dhaqmayey kii hodheeda laga dhaqmayey shaqo kastaba habraaci laga dhaqmayey oo sawirra oo muuqaal dadka ah oo ku faafin doono dhammaan magaalooyinka waaweyn dalka ku faafin doono marka taas waxaa la rabaa in la ixtiraamo oo aan noqonin uun waa la fasaxay oo wali maadaama xanuunkii jiro aynu rabnay in saa hore u sheegnay in mas'uuliyad dhammaanteena saaran tahay in wixii ilaalino Cabdirashiid Cali Barre Somali TV Hargeysa